الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجاج بيت الله الحرام gaar ahaan xujayda xajka jooga ee maanta mina taagan berrina ilaahay idankiis carafa u maaragtay u boqoolaya. xajku ilaahay subxaana watacaala wuxuu ujeedayay taqwada ilaahay subxaana watacaala in laga helo. wadada loo marayaana waa dikriga ilaahay subxaana watacaala, wadkuru llaha fi ayaamin macduudaatin. ilaahay xusa maalmo kooban weylo. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. داد عرفة كسو قدونتان وحد إلهي كحصيسان لا إلهي سبحانه المشعر الحرام ومزدلفة. مالمها مننا واذكروا الله في أيام معدودات بوير إلهي سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى وحو وجع عليه هي ذكر إلهي ويكمل هاي تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هذا قادسان إلى ما أنت عيد نجح كترتان الرية جمرة العقبة لطورة. مركز سرت يجنت حجك وحوي ذكر إلهي سبحانه وتعالى. إن بديسو تصبيح ذا تكبيرته تهليشة قرآن كريم موجان. الدعاء هو العبادة. waxyaalaha meeshan loo yimi oo xaram loo yimi mashaacirtana waxa weeye ducada ilaahay subxaana watacaala barido. maka waxaa ku yaala yani meelo badan 10 ka badan oo culimadu ay xuseen ducada in lagu waajibo. waxaa ka mid ah kow kacbada marka kow ugu horeysa aad arkayso inaad ducaysato. waxaa ka mid ah xajarul aswadka iyo albaabka kacbada inta u dhaxaysa multazim baa la dhahaa. waxaa ka mid ah xajarul yamaaniga. waxaa ka mid ah maqaamu ibraahim. waxaa ka mid ah kacbada gudaheeda badanaaba haddii laguma furi karo, madaxda iyo waxaasaa loo furaa. laakiin waxaa la mid ah oo kacbada gudaheeda inaad ku tukatay la mid ah xijru ismaaciil, meesha yaree dhisan ee kooban fooqa biyaha soo daadi hoostiisa ah ilaa 1 mitir taqriiban. waa dhulkii ay ka gaabatay markii hore kacbada gudaheeda ay ka mid ahayd, laakiin qoraysh markii ay ku yaraatay nafaqada ama kharash ku yaraaday ayay soo koobeen xoogaa. marka halkaasna waxay la mid tahay adoo gudaha ku tukaday oo kaleeto xijru ismaaciil meesha la yiraahdo inaad gasho. waxaa ka mid ah safa iyo marwa. waxaa ka mid ah meelahan goobahan hadda aad xujaydu tegayaan oo mina dhagaxyada marka la tuurayo ducada nabiga calayhi salaam duca dheer buu ducaystay. waxaa ka mid ah carafa, yowmu carafa markii laga bilaabo salaada duhur in la tukado. duhur iyo casar baa la isku daraa carafa laba ragco weeye. marka bacdina waxaa loo fariistaa duca loo fariistaa iyo quraan akhris iyo alla bari ilaahay subxaana watacaala in la bari ilaahay loo toobad keeno. wax walbana ilaahay subxaanahu watacaala aada weydiisato. muslimka oo dhanna u ducayso, duriyadaada u ducayso, dadka u ducayso. waxaa loo baahan yahay xajka waxyaalaha laga barto oo madarasadiisa laga barto sabirka ka mid ah in laysu dulqaato. waxaa ka mid ah in xujayda marka basaska la fuulayo, marka teendhooyinka la gelayo, marka la degayo, marka sakiina yani deganaan iyo xasilooni, ha boodboodin, ha kabashlaynin. cibaadadu kabashlays maaha, dadku tumasho maaha, qof riixid maaha, xusulin ma aha, tartiib u soco. khaasatan dadka waaweyn, dadka yani dumarka, dadka tabarta daran, dadka xanuunsan waa in loo dhimriyo oo aad gadaal isaga dhigto oo aad albaabka u deyso hadday baska fuulayaan iyo hadday ka degayaan, haddaad xataa lugayso. marka waxaa loo baahan yahay in laysu dhimriyo, in la dulqaato. teendhooyinka marka la jiifo waa lagugu huurin, waa lagaa dulboodi, waa lagaa dul tallaabsan. waxyaalahaasoo dhanna waa in lagu sabr. waxaasoo dhan waxaad ku baranaysaa sabirka iyo taqwada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa lagu baranayaa. marka madaraso weeye sanadkii hal mar timaada. ilaahay subxaanahu watacaala annaga iyo idinkaba ha noo qoro. annaga hadda idin lama joogno, laakiin ruuxdaan idinkula joognaa ilaahay idankiis oo qalbigaan idinkala soconnaa. maanta waxaa la joogaa waa yowmu tarwiya, waxaa la joogaa mina. duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha iyo subaxdii berito carafa ayaa fajarka lagu tukanaya. salaadaha afartaana waa la gaabinaya, mid walbana waqtigeeda la tukanaya, layskuma darayo. meelaha salaada la isku daro waa 2 meelood, waa carafa oo duhur iyo casar la isku daro, waa misdalifa oo cisho iyo maqrib la isku daro. inta kaleeto mina la joogo salaadaha mid walba iskeeda loo tukanaya, laakiin salaadaha 4 waa la gaabinaya. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa xujayda xajkooda ka aqbalo. kelimad kaleeto waxa weye dadka xujayda u adeegaya, walaalayaal u niyeysta xaajiga waxbaa lagu daraa, wax lagama qaado. waxbaa lagu darsadaa oo ducaa laga doonaa, xoolo lagama doono oo kharash lagama doono. waayo waa martidii ilaahay subxaanahu watacaala. marka dadka shaqaynaya ama guryaha ka shaqeeyaan ama deegaanka ka shaqeeyaan ama gawaarida ka shaqeeyaan,
taasna iyagaan xusuusinaya oo waxa weeye inaad dadka u adeegtaan. dadka quraysh oo mushrikiin ahaa cuntadana kama gedi jirin, raashinkana kama gedi jirin, cabitaankana kama gedi jirin, waxna kama gedi jirin xujayda. Hashim nabiga calayhi salaam awoysna waxaa loogu bixiya Hashim waxa weye kibista iyo hilibka uu isugu burburin jiray oo hudi jiray sida inaga muufada cuno kale uu isugu jajabin jiray xujayda oo siin jiray. Hashim saasaa loo yahay. Marka taas waa inay dadka adeegayaana ay niyeystaan oo ay maaragtay xujayda aan la dhibin oo aan wax dhiba loo keenin. qof kastoo muslima oo xajka ku jiraan ha iska ilaaliyo dhibta dadka muslimiinta, iska ilaali kuna dadaal camal markaa dikriga ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay idankiisa xaj mabruur ayaa ilaahay subxana watacaala u rajaynaa xujayda oo dhan. ilaahay towfiiqda hana waafajiyo. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin.